ku soo dhawow magaalada qadiimiga ah ee Markacadey oo ka soo kabanayso colaado muddo ragaadiyay inkastoo ay magaalada marka ku tallaabsanayso horumar wax ku ool iyo xasilooni ah dumarka ayaa weli wajahaya faquuq iyo caqabado is hortaagaya inay ka qayb qaataan nolosha caadiga ah iyo horumarka bulshada si la mid ah qaybaha kale ee bulshada dumarka iyo gabdhaha daayarta ah weli waxa ay la dhibaataysan yihiin nabarrada ay colaadu reebtay kaba sii darane codadkooda lama dhageysto marka laga hadlayo sidii xal loogu heli lahaa soo afjaridda colaadaha si loo gaaro xal loo wada dhan yahay waa in la maqlo ama la dhageysto talada iyo fikirka qof walba oo ka mid ah bulshada haddii aan nahay dumarka oo halkan ku nool haweenka haddii aan nahay haween kale waa ogtihiin markasta waa loo baahan yahay meel kasta ay joogaan waxaan jeclahay door weyn ay ka ciyaaraan waxaan rabnaa dhibaatada marka ay soo dhacdo rag waa iska cararaan haweenka waxay la hiraan ilmaha macnaha goobaha oo waxa loogu tagaa dagaalada loogu tagaa hadda intaas waa ka soo gudubno hadda waxaan leeyahay in waxaan rabnaa nala caburan codkeena la qaado oo nagu daro ragga iyo annaga nala barbardhigo kale uma badaheena ragga la badayaay laakiin waxaan jecelnahay in wax noogu daro oo nala caburane oo qayb aan ka qaadano dib u heshiisiinta maxaa noo diiday annaga laf dhabarta bulshada aan nahay warshada wax soo saaraysaanay ka wax walba keenaya annaga dhalay xagga ilaahayna darajaan ku leenay ina xaggiina laakiin aan ka darajo beelna maxaa keenay colaadu waxa ay saamaysaa qof waliba sidaas darteed aan qof walba ka qayb galino xal u helideeda waa inaan dhageysanaa ama aan maqalnaa ra'yiga qof walba sidaas ayaa waxa inoogu suuro galaysaa inaan helno xal sababi kara wax ka qabashada waxyaabaha markii hore sababay colaada gacmaha aan isqabsanno si aan u dhisano qaran nabad iyo ammaan ah